maxaa ka socda bariga dhexe 13 bisha Juun sanadkan 2025 maalin Jimco ah saqbarkii maamulka sahaynada Israa'iil waxay qaadeen weerar qarsoon oo lala beegsaday bartilmaameedyo muhiim ah oo Iiraan ku leedahay gudaha dalkeeda balse jawaabta Iiraan waxay noqotay mid lama filaan ah xooggan oo digniin u ahay dunida galbeedka kana baxsan qiyaasahooda istiraatiijiyadeed waa maxay sababta dagaalkani u qorxay maxaa dhacay yaa bilaabay weerarka iyo sidee ayuu u saameyn karaa bariga dhexe dunida islaamka iyo guud ahaan caalamkaba hadaba ku soo dhawow muuqaalka maanta waxaan kuu sheegayaa xaqiiqooyin dhab ah oo ku saabsan dagaalkan fadlan haddii aad xiisaynayso xoog ku saabsan bariga dhexe nala joog ilaa dhammaadka muuqaalkan sidoo kalena ku soo biir kanaalkeena oo subscribe like iyo share leh mahadsanid maxaa dhacay subaxnimadii jimcadii hore ee bishan warbaahinta caalamku waxay shaaciyeen in diyaaradaha aan ciidanoodin oo laga leeyahay Israa'iil ay beegsadeen saldhig ciidan oo ku yaala gudaha Iiraan gaar ahaan gobolka Isfahaan halkaas oo la tuhunsan yahay inay Iiraan ku kaydiso hubka nukliyeerka ama tiknoolajiyadiisa casriga ah sidoo kale waxay weerareen oo dileen saraakiishii ugu sarreysay ee hogaaminayay ciidanka kala duwan ee Iiraan sida sargaalkii hogaaminayay ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ah sargaalkii hogaaminayay ciidanka guud ee Iiraan iyo tiro saynisyahanno ah oo ku takhasusay cilmiga nukliyeerka saacad iyo bar kadib ayuu ra'iisul wasaaraha maamulka sahaynada Israa'iil Benjamin Netanyahu sheegtay weerarka isagoo ku sheegay inuu bilowday waxa uu ugu yeeray howlgalka libaaxa soo kacaya Operation Rising Lion jawaabtii Iiraan saacado kadib markii laga baxay jahwareerka weerarka kadiska ah iyo buuxinta boosaska ay baneeyeen hoggaanka ciidanka ee la laayay Iiraan waxay qaaday tallaabo aan horey loo arag waxay si toos ah ugu riday gantaalo ballaaran iyo diyaarado isqarxiya oo bilaa duuliye ah gudaha Israa'iil howlgalkan argudashada ah Iiraan waxay ugu magac dartay howlgalka ballanta dhabta ahayd Operation True Promise tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee Iiraan si rasmi ah u weerarto dhulka la haysto ee Falastiiniyiinta ay heestaan gumaysaha Israa'iil iyada oo aan loo marin kooxo wakiilo ka ah sida Xisbullah ama Xuutiyiinta Iiraan waxay sheegtay in weerarkani yahay jawaab sharci ah oo ay kaga argudanayso duulaankii gardarada ahaa ee lagu soo qaaday dalkeeda gantaalaha Iiraan waxay gaareen meelo dhowr ah oo muhiim ah oo dhaca gudaha dhulka la haysto ee maamulka sahaynada Israa'iil waxay sheegtay inay soo riday inta badan gantaalaha iyadoo kaashanaysa nidaamkeeda difaaca cirka ee Iron Dome balse khubarada military ee Iiraan ayaa sheegay inaysan adeegsan awoodeeda dhabta ah balse ay ahayd tijaabo la tijaabiyay awoodda gumaystaha isla xilligaas waxayna sheegeen gantaalada bilowga la isticmaalay inay ahaayeen kuwo duug ah oo loogu talagalay inay mashquuliyaan nidaamyada difaaceed ee gumaystaha sahaynada kadibna waxaa waqti yar kadib waxa yimid jawaabta dhabta ahayd ee Iiraan waxayna burbur degdeg ah ka soo muuqday goobaha ay haleeleen gantaalada Iiraan sida wasaaradda gaashaandhigga xarunta sirdoonka Israa'iil ee Mossad iyo goobo kale oo dhaca caasimadda Tel Aviv waxaana soo muuqatay awoodda dhabta ah ee Iiraan inaysan ahayn dowlad la dhaylsan karo waxaana la soo warinayaa in xisaabaha ay isku dhufsadeen gumaysuhu iyo reer galbeedkaba ay wax weyn ka khaldameen waxaana halkii maalin kaga baxaysa lacag ku dhow 200 milyan oo dollar si ay isaga difaacaan diyaaradaha iyo gantaalada Iiraan iyadoo sidaas tahayna ma sii awoodayaan inay qabtaan gantaalada bartilmaameedka rasmiga ah oo socda ee Iiraan waxaana lagu mashquuliyaa gantaalo duug ah oo aan wax madax qarxa wadan sidoo kale Iiraan waxay u adeegsanaysaa hubkeeda casriga ah gaar ahaan hubka ka dheereeya codka ee hypersoniga kuwaasi oo wax ka yar 10 ilaa 7 daqiiqo ku tagaya dhulka la haysto ee Falastiiniyiinta waa marka laga soo tuuro dhulweynaha Iiraan ayaa waxay adeegsatay gantaalo casri ah iyo drones sida diyaaradaha isqarxiya ee Shahed 136 sidoo kale gantaalka Khaybar Sheekhan gantaalka Sinjiil kan Quds iyo kuwa kale kuwaasi oo awood u leh inay gaaraan masaafo fog iyagoo si dhab ah u haleelaya bartilmaameedkooda waa maxay sababta xiisadani u kacday waxaa jira dhowr sababood oo isu biyo shubtay dagaalka Gaza maamulka gumaystaha sahaynada ee Israa'iil ayaa weli ku jira dagaal toos ah tan iyo sanadkii hore waxayna weli xasuuq ka wadaan gudaha Falastiin iyadoo oo maalin walba laynaya caruurta haweenka iyo shacabka reer Gaza Iiraan oo ay wakiilo ka yihiin xulafada ay taageerto ee gobolka ayaa ku dhawaaqay dagaal loogu gargaarayo shacabka dulman ee reer Gaza Xisbullah ayaa bilowday weerar ka dhan ah gumaystaha sanadkii 2024 halka Xuutiyiinta Yemen ay ka xanibeen marinka badda cas maraakiibta wax u sida iyo dowladaha taakuleeya ee galbeedka sida Mareykanka iyo Ingiriiska
sidoo kalena ku qaaday dagaal ay u isticmaaleen gantaalo iyo diyaaradaha bilaa duuliyaha ah. Dagaalkan ayaa weli socda. Sababaha kale waxaa ka mid ah samaysashada hubka nukliyeerka ee Iiraan ayay galbeedka iyo Israa'iil ku eedeeyaan inay horumarinayso barnaamijkeeda nukliyeerka, taasi oo ay Israa'iil u aragto khatar weyn oo ka dhan ah jiritaankeeda gumeysi. Sidee ayuu caalamka uga falceliyay? Reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka, waxay si degdeg ah u taageereen Israa'iil. Mareykanku wuxuu sheegay inuusan doonayn dagaal ballaaran, balse wuxuu diyaar u yahay inuu difaaco Israa'iil. Dhinaca kale, dalalka Muslimka ah sida Pakistan iyo Turkiga ayaa sheegay in Iiraan ay xaq u leedahay inay iska difaacdo weerarka gardarrada ah ee gumeystaha. Sidoo kalena loo baahan yahay inay dalalka muslimiinta ahi midoobaan, hurdadana ka kacaan. Ayna suuragal ahayn in maalinba mid la cuno oo ay kor ka fiirsadaan, iskana daawadaan. Halka dalalka Carabta ah sida Qatar iyo Sacuudiga waxay ku baaqeen in la joojiyo gacanka hadalka oo lagu xalliyo arrimaha si diblomaasiyadeed, iyagoo u baqaya in dagaalku baaho, saameyn dhaqaalena iyo mid militariba ku yeesho. Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday labada dhinac inaysan ku sii fogaan xaaladda. Waa Qaramada Midoobay oo aan dhaleeceynayne ma jirto inay difaacaan xeerka Qaramada Midoobay ee mamnuucaya weerar ka dhan ah dal madax bannaan iyo xarumaha nukliyeerka oo halis bini'aadanimo ka dhalan karta. Khatarta dagaal weyn oo dunida saameeya. Haddii Iiraan iyo Israa'iil ay galaan dagaal buuxa, waxaa suuragal ah in qiimaha shidaalka uu cirka isku shareero. Dalalka kale ee gobolka ahi loo soo jiido dagaalka, kacdoonna iyo bannaanbaxyo ay ka bilaabmaan dalal badan oo Muslim ah, lana rido maamulada raaliga ka ah gumeysiga. Xaaladuna ay gaarto meel ay adag tahay in la xakameeyo. Intaas waxaa sii dheer, haddii weerarada la isagala gudbo badda iyo hawada, waxay saameyn doonaan dhaqaalaha caalamka, ganacsiga iyo siyaasadda guud ee gobolka. Xiisadda Iiraan iyo Israa'iil waa mid aad u culus, waana muhiim in ummadaha muslimiinta ah, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed, ay fahmaan waxa ka socda caalamka. Dagaaladani kuma saabsana oo keliya laba dal, waxay saameyn karaan mustaqbalka dhabta ah ee gobolka iyo xiriirka dalalka Muslimka ah. Kama dambaystii, haddii dagaalkani sii fido, wuxuu noqon karaa mid gala taariikhda sida dagaaladii Ciraaq iyo Syria. Haddii aad jeceshahay in dad badan fahmaan xaqiiqada waxa ka dhacaya Bariga Dhexe, fadlan la wadaag muuqaalkan oo ha iloobin inaad subscribe gareyso kanaalka si aad ula socoto wararka iyo warbixinada xiisaha leh. Mahadsanid.